السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السلام الدعوة يال مركز الدنيا دعوة كتجوبتان halkani waa haga academy hoyga tacliinta tiknoolajiyada iyo horumarinta aadamiga ku soo dhawaada casharkeennii sagaalaad ee barashada kombiyuutarka iyo isticmaalkiisa. waxaan hore uga soo hadalnay casharro aad u fara badan aad iyo aad maasanta inta la socotay. haddii aadan la soconna fadlan ku soo bir channelka haga academy oo rukumo gambaleelkana fura si aad u hesho casharrada oo dhammaystiran. wixii intaasi dheeriyana nagala soo xiriir numbarada ku qoran shaashada oo hadii la ku roon yahay aad ku arkayso markaad channelka soo gasho number aad ku arkaysaa ama facebooka. okay inta wixii dheer waxaan ugu gudagalayaa casharkeennii. waxaan hore u soo baranay casharro aad iyo aad basic u ahaa oo muhiim u ahaa. waxaan hubaa qofka computer cusub soo gatay inuu wax fiican nala fahmay, wax fiican nala helay oo xog badan haysto markan computerkiisana uu isticmaali karo. waxaana inta badan casharada way dheer yihiin, waxaan u dheereeyay qofka si fiican uga bogto ma soo gaagaabinin. okay maanta waxaan baran rabnaa biidnilaahi kariim qaybo aad u fara badan oo muhiim ah ayaan baran rabnaa. qaybahan baran rabno waxyaabo baran waxaa kamid ah inaan memorygan qaybta memoryga wax ka barano. memorygan qaybtan hadii la ku run yahay drive-ka ama telefonkaaga marka isticmaali memory u taqaan ama my files u taqaan ama file explorer u taqaan ayaan wax ka baranaynaa biidnilaahi kariim. waxaan kaloo baranaynaa sida computerkeena hore waxaan u soo baranay sida computerkeena double click wax meeshan ayaa lagu furno. sidee anagu waxaan saan doono ma la karno hal click hadaan rabno dhigi karnaa, laba click uga dhigi karnaa hadaan rabno oo double click iyo hadaan hal click siino nagu furmaa, hadaan kor saarnaa aan rabno nagu fur. yacni sidee anagu management computerka oo wareegi karnaa oo aan wax fiican badan uga bedeli karnaa. ku soo dhawaada casharkeena hore ayaan guda galayaa. waxaan marka hore ka bilaabayaa qodob yar muhiim ah oo ah war sideen awood ugu leeyahay in aan task barkan aan ku xirto hadii la ku rooyay waxyaabaha aniga aan u baahanahay oo aan rabo markaas inaan isticmaalo. sidee bal ugu xiranayaa, sidee shayga aan ku soo xirto hadii aan doonayo inaan iska saaro aan isaga saaraya. waxa yiraahdaa bin hadii la ku rooyay task bar iyo unbin from task bar leeyahay. tusaale ahaan waxaan soo furanayaa PC-gayga. waxaan rabaa PC-ga markii soo furmo hore waxaan u baranay halkan inay soo galayaan waxaan isticmaalaynaa ama applicationska ama markaas waxa noo furan programka noo furan halkan marka soo muuqan doono. meeshan waxaan rabaa haddaan close iraahdo oo aan xiro oo meeshan close iraahdo wuu tagayaa dabcan waad arkaysaa. waxaan rabaa inuu soo tagin oo uu joogo oo halkiisa uu ka dhaqaaqinayaan doonaya. sideen sameeynaya marka waa su'aasha ayaan ka jawaabaynaa. ko haddaan halkan soo furo sidaan haysto si aan meesha ugu xirto waxaan sameynayaa right click ayaan siinayaa muuskeyga. kadibna halkan waxa laga soo saarayaa dhammaan waxyaabihii ku jira dhigaysa ku jira laga soo saarayaa oo ma isku meesha ay ku jireen ama ku jira baa laga soo saarayaa. halkaana waxa la igu soo qorayaa bin to task bar oo laga wado task barkan ku xiro. halkaana waa close window daaqadan ama iska xir windowgan daaqadan isticmaalayso iska xir. haddaan iraado bin to task bar dan iraado oo aan tagoon iska soo xiro meeshiisa ayuu taagnaan doona oo kuwa meesha taagan way ka mid noqon doonaa. haddii aan u baahanahay inaan iska saaro maxaan sameynayaa right click ayaan siinayaa. kadibna waxaan dooranayaa unbin from task bar ayaan dooranayaa oo sidaa markaan iraado meeshii waa uu ka baxay. intaas basic ay ahayd aad muhiim kuuga ahayd adiga. hagaag aan hore usoo gudbo aan casharkeena qaybta xiga u galo. halkan markaan imaado waa meeshan wax ka baranaa waa this PC ama my computer ayaan maanta wax badan ka baranaynaa. halkan ayaan rabaa inaan kuu sharaxo sida ay kala tahay iyo waxyaabaha kaaga muuqda waxyaabaha ay kala yihiin. halkan marka aan joogo bal waxaan galayaa marka qaybtan u koreyda oo halkan kaaga muuqata ayaan galayaa. qaybtan ayaan galayaa. qaybtan waa qayb very important ya bal ayada ku hormaro. meeshan waxaad arkaysaa computerkii caadi inuu muuqdo. meeshan calaamada ayaad ka aragtaa bal waxaan maxay yihiin. horta meeshan waxa loo yaqaan quick access toolbar oo quick access kan weeyaan. quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa. meeshan marka waxyaabaha saaran dhammaan waxba loo isticmaalayaa. haddaan hadda computer ku dhufto meeshan waxa saaran restore oo micnaheedu yahay waxaan gaabi. haddaan click siiyo wixii dhama way gaabteen oo waad arkaysaa hal mar aan dib kaaga dhigo sidaan ayay noqdeen oo filterkii wax minimize la yiri oo kale maximize la yiri lagu dhufto kale ayuu noqdo halkaas lagu dhufto kale ayuu noqdo.
haddaan ku noqdo kaliga aan siiyo waxaa ku xiga move oo ah folderkan hadda meeshaan yaala in aan dhaqdhaqaajiyo oo aan anigu maamuli karo. halkan markaan imaado waxaan ugu xiga wax aan u deeli kuna size-kii awood waxaan u leeyahay folderkan inta qabto inaan yareeyo asaga dhan oo aan gaabiyo ayaan awood u leeyahay oo aniga ayaa saan doona ka yeeli karo. oo haddaan rabo boqolaal folder ayaan computerkay ku fura karaa aniga oo mid kasta gaabinaya sidaana saan rabana xogta uga baaranaya. hagaag haddaba haddaan mar kale ku noqdo meeshii mar kale aan ku noqdo haddaan haddana ku noqdo hadda meeshaan joognay oo aan iraahdo minimize maxay ka dhigan tahay waa adiga oo calaamada yar of minus ka kale ku dhuftay kadibna sidaas ay minimize ku noqotay oo daaqada ku soo banaanatay balse taski barku hoos ayuu kaaga xariiqayaa agow applicationska ama programmeska markaas ku furan. waan ku noqonayaa haddana markaan soo weynaysto ayaan rabaa haddaan halkan aadin ayaan rabaa inaan weynaysto halkan ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay meeshan ay ku qoran tahay maximize halkaana waa ku weynaysan karo maximize ayaan ka dhigi karaa. waxaan haystaa options anigu aan xoog qiyaar u leeyahay midkaan doonana isticmaali karo maximize ayaan leeyahay kadibna sidaan ayuu igu soo weynanayaa hadee la kuuraya daaqadeedan isticmaalay. markaan ku noqdo mar kale qaybtan minimize ayaa ku qoran oo minimize waa adeelku maximize ayaa ku qoran oo hadda maximize waa yahay uma baahni minimize kan waa soo aragnay waxaan ku arkaynaa bal close ama alt 4 waxaad u isticmaalaysaa hadee ku roon yahay inaad ku xirto oo waxay ka dhigantaa adoo halkaan tagay kadibna computerkaaga close siri ayay ka dhigantaa. haddii aan close iraado wixii dhamma way xirmeen aniga ayaa daaqada ka fura meesha markii hore oo kuma aanan xirin. iminka waxaan rabaa mar dambe inuusan ka bixin waan soo furayaa kadibna right click ayaan siinayaa taski barka ayaan sidaas ugu xiranayaa. intaa waa isla fahanay ayaan filayaa. hagaag aan socda markee intaasba waxaan fiirinayaa bal meeshaan ku xigtaa maxay tahay. halkan waa undo oo wixii aad samaysay ayaad dib u soo celinaysaa. halkaana waa wixii aad samaysay waa control z iyo control y aad kala isticmaalaysaa hadii la ku reeyay keyboardkaaga yani waxaad maamulaysaa wixii aan ka soo gudbo. haddaan rabo inaan dib ugu noqdo waxaan sameynayaa control z ama redo ama undo baan isticmaalayaa. tusaale ahaan halkaan imaado halkaan aan file ka raadiyay bal aan rabo inaan delete tusaale ahaan waxyaabaha dhan muhiim weeyaan bal aan anigu folder abuuro. folderkan halkaan aan ka abuuray aan rabaa bal inaan ku ogaano qaababka aan waxaan u isticmaalayno iyo sida aan u galayno. marka aan dushiisa imaado halkaan aan imaado kadibna halkaan aan tago waxaan sameeynaa waa delete horta marka hore delete ayaan leeyahay. meeqa qaab ayaan delete karaa waxaan rabaa in aan ku soo noqonin horta folder intaan u delete karo folder iyo sida aan u sameyn karaa labadaba inaan ku soo noqon ayaan rabaa. right click baan sii karaa kadibna halkaan ayaan tagi karaa waa delete karaa. haddana waa imaan karaa waan dooran karaa kadibna halkaan ayaan ka delete karaa. haddana waa i dooran yahay halkaan ayaan ka delete karaa. haddana oo control d ayaan ka delete karaa. meeqa qaab ayaan haystaa many options ayaad haysataa. halkaan ka delete kor imo right click loo delete backspace bal nu yeelaan fiirino weli kuma aanan fiirin backspace kama yeelayo sidaan filayo bal meeshiidaan ku noqdo in folderka uu yaalo new folder inuu meeshii yaalo balaan raadiyo hadda hal mid samaysto meeshaan ka samaysto kan halkan ii yaala haddaan backspace iraahdo waxaan dhacayaa talo kadib ma ka baxayaa meeshaas kama baxayo ma samaynin weli anigu laakiin waxaan filayaa una ka bixinayo balan hal magac u baxsho magac aan ka bedelo oo aan iraahdo ka bax tusaale ahaan aan baxsho ka baxan u bixiyo. hagaag kadibna folderka ii dooran balan saan iraahdo kadibna balan raadiyo waa arkaysaa inuusan oolin ayadana waa option kale oo ku delete karto waad banaanka ku geyn karto. waxaad haysataa many options oo aad folder ku delete karto ku keeni karto waxna kaga bedeli kartaa ayaad haysataa. dabcan sidaan filayo folder kasta wax sideed doonto aad ka yeeli kartaa oo waad delete kartaa waana ka saari kartaa meesha. backspace kaga saari kartaa halkan adiga doorto delete kaga saari kartaa halkan adiga doorto delete kaga saari kartaa adiga right click giro delete ka saari kartaa backspace kaga saari kartaa control d kaga saari kartaa. many options ayaad haysataa. hagaag marka folderkan cusub aan sameeyay waan delete tusaale ahaan halkan ayaan tagay tusaale ahaan waan ka delete markaan kadib waxaan rabaa inaan soo celiyo xagee taabanaya undo baan leeyahay ficilka hore u sameeyay soo celi folderkii waa u joogaa. fiiri haddaan soo dhaweeyo halkan folderkan ayaan iska delete hal mar folderkan soo doorto waa kan folderkan ama magac bixiyo si aan u wada ogaano magac aan u baxsho
waxaad u bixisaa tusaale ahaan intaan buu bixiba just name bas aan ka rabnaa iska gaag waxaan u maleeyaa sifaanad u arkaysaan kadibna iska delete kadib folderka dooro kadibna delete halkan tag iska delete haye folderkan soo celishaan rabaa maxaan oranayaa undo ama control set sidoo isticmaal undo waa u yimid waxaan rabaa hawsh inaan bartiisa ku celsho soo noqon control y ama redo waa u baxay hadana ka waranay okay halkan ku xigtaa maxay tahay waa propertieska hadii folder markaas uu ku dooran yahay propertieska markaas folderadaas ama locationska sida downloads kale jooga propertieska sideen ku ogaanaya downloads documents kale tagay adaan ku dhufto waxa la soo saaraya propertieska ay leedahay documents property ay la soo saaraya hadaan halkan hadaan desktop tago dabcan kama shaqeynayo hadaan desktop tago oo aan iraahdo ku dhufto halkan waxa la soo saaraya properties la soo saaraya meesha uu yaal inta GPU isticmaalayo sida uu socdo mid kasta sida uu shaqeynayo waad arkaysaa GPU soo isticmaala cabaar bay soconayaan kadib uu istaagan 16 GPU isticmaalaya iska ka isticmaalaya lagu leeyahay 9 waa iska 5 waa iska 17 GPU weeyaan ayuu isticmaalaya yani sidan ayaa lagu tusinaya azun waa propertieska kuwa halkan xiga marka joogtay propertieska sida arki lahayd weeyaan qaybtan waa soo ogaan qaybtan waa dilay soo ogaan qaybtan maxay tahay folder cusub aan qaybtan ka sameyn karaa folder cusub aan qayban u sameyn karaa inaan desktop ka tago kadibna right click iraahdo kadibna new doorto kadibna aan folder ka doorto inaan halkaan imaado halkaan oo jooga halkaan folder iraahdo waa meel inaan halkaan tago kadibna aan ku dhufto aan iraahdo aan ku dhufto kadibna folder la abuuro ayaduna waa meel inta soo qaabayaan folder u abuuran karaa haye qaabishin kale laga yaabo inaad taqaano haddana xataa halkaan tago kadibna meeshan aan new item ku dhufto aan new item farta geliyo ku dhufto waxa ay soo baxay folder ayaan ka abuuri karaa iyadana fiiri folder kale ayaa ka sii abuurmaya you can marka isticmaali kartaa many options oo aad uga baahan tahay folder xad ku samaysato halkaan marka qaybtan maxaa loo yaqaanaa marka tusaale ahaan qaybtan maxaa loo yaqaanaa arday la ku roon yahay qaybtan iyaduna meeshan ayana folderka magac ayaa looga bedelaa oo sidee magac uga bedeli karaa ana f2 isticmaalaya magac ka bedeli karaa tusaale ahaan file meeshan iyo fax ay ku qoran tahay ama fax ay ku qoran tahay waxaan ku dhufanayaa faxkaas waxaan ku dhufanayaa halkan maxaan haystaa rename maxaa haystay maxaan haystaa rename kala labo maxaan haystaa inaan right click iraahdo kadibna aan rename doorto maxaan kaloo haystaa inaan click iraahdo haddana cabaar marka joogo click aan iraahdo kadibna magaca sidaas aan kaga bedelo click ayaan iri aan ka tagaa mar click ayaan iri haddana cabaar ayaan click iri haddana magaca ayaa ka bedelay leeyahay folderkii ma garatay meeqa way haystaa aan click aan siinayo aan right click siinayo kadibna name tagaayo name tagaayo aan rename ka tagaayo aan halkan rename ka tagaayo iyadana rename ka dhahayo waxa haysta options aad u fara badan iyadana dabcan okay soo gudub meesha marka maxaa loo yaqaanaa kuwa expert loo yaqaanaa waxaan meesha way dhibeen waxaan rabaa inaan iska saaro waxaan tagayaa halkan alfalaartan yarta click ayaan siinayaa kadibna waxaan check saaranto inaan checktan ka qaadaya mid kasta check ka qaado u guuraya fiirso ilaa meesha ay ka banaanaato oo wax yaala ay ka yiraadaan way wada guurayaan ma arkaysaa a lot of options ay haysato ku baashaari kartid rename waa wada guurayaan wax dhan meesha waxa ma yaalaan inaan soo celiyaan rabaa fadan ku dhufo mid kastaba soo saar mid kastaba soo saar mid kastaba soo saar mid kastaba soo saar tigtii soo saar le adiga okay waa isla garanay haddii aad qaadaan ka tagay properties ida aan dhigi karaa renamekii soo celi properties ka ida aan dhigi karaa renamekii soo celi renamekii properties ku maqan yahay kan asagana waa yimid asna waa yimid okay halkan maxaa ku yaala marka waxaan rabaa meesha kore ay saaran yihiin inaan kasoo dejiyo oo meeshaan aan keeno qaybtaan inaan keeno ayaan rabaa maxaan sameynayaa falaarta ayaan click siinayaa kadibna waxaan leeyahay show below the ribbon ribbonku muxuu yahay waa midkan ribbon halkan ayaa ribbon loo yaqaanaa okay click ayaan siinayaa kadibna waxaan leeyahay hoos iga tus hoos ayaa laga tusaya waa kuwan kor waa kasoo guureen halkan ayay wixii yaalaan waa kuwan halkan ay dhooban yihiin okay waxaan u baahanahay inaan meeshooda ku cesho isla bartaa taabanaysa buff ayaa leedahay kor ayuu tagayaa waxaan rabaa inaan ribbonkan ii muuqdo aan iska qarsho maxaan sameynaa inaan iska qariyaan rabaa asaga dhan oo meeshan ay banaanaato halkan aan tagayaa kadibna waxaan leeyahay minimize ribbon waa laga celinay haddii aan rabo inaan soo furto haddana waxaan sameeyaa halkan aan tagi karaa ma fahantay halkaas ayaan tagi karaa haddii aan u baahana waa iyada aan tagi karaa haddii aan u baahana halkan ayaan tagi karaa haddana waxaan oran karaa haddii la kuurinaya iga qaadoriyaa wixii banaanka ii soo dhow alla qof fashion sayid haysataa hagaag halkan hoos haddaan imaado meeshan quick accesski unbaa kaliya ku yaala wax weyn maahan
qaybtan halkaana ku xigtana waa copy home kan inaan gooni u gal ayaan rabay balan faylka ku hormaro fayl marka aan joogo meeshaan markaan ku tagaa horta 5 qaanadood ayaa idin taala halkaan marka laga yaabo computerkaagu inuu kala iyo wax kala badan ay ku yaalaan adiga dabcan dad Ingiriisi garanayso wala macaamuli kartaa waxaas oo dhan open new window daaqad cusub halkaan aan tagayaa halkaan markaan tago daaqad cusub maxaa furan waxa laga wadaa adaa fahmaysid kliksii kadib waxaa arkaysaa halkaan ayaa laga soo furay daaqada iyo furan mid lamid ah halkaan laga soo furay markaan soo dhawaan hadda balaariyo weyneeyo sadaqada iyo furan mid lamid ah ayaa halkaan laga soo furay oo documentisa ayaa halkaan laga soo furay waa isla garanayaan filaya daaqada iyo furan mujida faylka magaca faraha badan la horeeyo faylka magaca faraha badan la horeeyo marka a lot of options ay haysataa oo adigu aad ku baashaale karto ay haysataa ku baashaal okay iska xirkan ma baahni hadii aan soo noqdo hadii la ku roon yahay qaybtan kan ku soo noqdo halka marka aan joogay dana maxaa la dhahay halka markaan joogo maxaa la dhahayaa halka markaan joogo maxaa la leeyahay open new window in new process taan daaqad cusub iyo process cusub adigu iska soo furo oo daaqad cusub iyo process cusub oo kale waa la mid aydiyo la mid weey laakiin daaqad cusub iyo process cusub ayaa lagu soo furay oo drive-ka aad joogtay ayaa daaqad cusub laga soo furay just I no need uma baahni iska xirkana halkan hadaan imaado hadana mar kale aan soo noqdo on faylkii ku soo noqdo hadaan faylkii ku soo noqdo halkaan aan imaado window powershell kan adiga uma baahnid oo window powershell ku shaqo ku leeyahay administrator ku markuu wax ka bedelayo computerkiisa ama waxyaabaha ka maqan marka ku raadinaysid oo qaab koor ahaan ay u soo baxaya oo sidan ay arkaysaa inay noqoto meeshii kadibna koor ahaan hadaan yes iraado koor ahaan ay wax u soo baxayaan oo sidan ay koor ugu soo baxayaan wixii marka hadda ma baahnid adigu dadka programkii markaas dad bartaankaas loo baahan yahay ka soo gudbo sagana halka marka aan imaado faylka hadana dib aan ugu noqdo halkan waxa ku yaalo options marka aan ku dhufto aan dib ugu noqdo markaan ka tago kadibna options aan joogo markaan options joogo fiiri hadalkan ayaan joogay iska xirkan options marka aan tago aan options ku dhufto file folder options ayaa ii soo baxaya kan waxaan rabaa hoos inaan ka arko balse waxyaabo kale oo muhiim ah ayaa ku jira meeshan halka marka aan joogo sidaan ay ahayd ugu waxba la soo saaray markaan options imaadana waxa la soo saaraya kuwan of frequent places ka markaas iyo meelaha waa qaybta halkaan ay halkaan geeskan soo xigtay ayaa la soo saaraya wixii ku jiray ayaa halkaan la soo helbi waa caawin close-na waa computerka iyo waxa aad wato hawshan iska wada jooji gabi ahaanteed oo iska xirba qaybtaas waa iska xiran qaybta oo arkaysaa qaybtii hore oo aan ku soo furay dee la ku rooyay new window ay furan iska soo furay iyo soo fur waa iska meeshii inta folder aan kaga soo gudbo file aan kaga soo gudbo qaybtan hore u soo aragno marna computer ay saaran marna dee la ku rooyay dad folder saaran taana haba folderka saaran magaciisa soo furdan aan ku noqdo halkan computer la soo fuulaya hadaan macnaha aan tago aan download istagana falarted marka saaran amal ayaa soo fuulayso oo folder meesha aad joogto markaas folderka aad joogto markaas magaciisa iyo baalkan dhimaga si shape-ku uu leeyahay ayaa soo koray halkan kaga soo gudbo aan u soo dhaca qaybtan kale home-ku waan tagi doonaa binana kalimaad si fara doonaa bal qaybtan access-ka aan imaado waxaan rabaa computerkayga inaan meeshan qaybtan horta aan fiiritaan soo gudbin qaybahan meeshaan aad arkaysid waxa waa qaybihi aad kala noqon lahayd meeshii telefoonka aad kala yariid isticmaaleeday macnaha min abaalkeen deel ku rintan dhanka midigta aad isticmaaleysay aad computerka ka isticmaali kartaa tusaale ahaan kan ayaan soo furtay halkan ayaan halka qabsaday waxaan u baahday inaan meesha aan joogaan ku noqdo halkan ayaan tagayaa kadib waxaan sameeyaa kaliya ayaan siinayaa ama waxaan si kara waxaan ku noqon karaa deel ku roon yahay keyboardkayga waxaan qaban karaa alt iyo falarta hadii la ku run yahay dhanka right click xigta afarta falaaro midna ay kor xigta midna ay soo xigta oo computerka laga isticmaalayo qaban kara waxaan leeyahay markaas altan qabanaya kadibna falartan aan qabanaya meeshii aan soo noqday hadii aan rabno soo midda dhankeeda kala ayaan click siinaya meeshii aan soo noqonaya falaarahaas keyboardka ku yaalaan waa saddex falaarood hadaan magacooda ku sheego waa scroll hadii la ku reeyay pg up iyo pg down iyo pause ay saddex afartaas weeyaan afartaas marka waa afar cod iska muudaan ba waxay ku yeelan hadii la ku roon yahay marka computerka ka fiiriso qaybta ay kaga dhigan tahay hadii la ku roon adigu mid qaybtii rabay kaga ooli karaan computerada qaar balse computer system weyn yahay isku meel ay ku yeelan inta badan keyboardka isku meel ay kaga yeelan okay marka halkan maxay tahay
waa wixii hadda ka soo tagtay ku noqo kana waa sidoo kale xag ka xig ku noqo wixii xaggan ku noqonaya halkana maxay tahay iyaduna waa waxaan kor uga sii baxniyo oo meesha ku marka hore aad tag xaggan tagaya meel mar abbaar marka hore aan joogo oo sidaan u joogo badan ayaan tagaya haddana wax la iga soo celi meeshii ayaan ku soo noqonaya meeshan falaartan yarta waxa weeyaan markaas inta fayl soo dhex martay marka soo sameysay intaan xabaan dhex maray markaan folderradan bas dhex maray hagaag bal qaybtan hoosaan taga marka meeshan waa meesha oo muhiimka wax laga bedelay marka halka markaan imaado ku access ku qoran tahay right click ayaan siinayaa waxaan rabaa in computerkayga aan u bedesho hada expand ayaa ku qoran ayaa u horeysa waa ballaarin karaa soo si ay meeshan igu soo dheerato oo mid kasta mid ku soo jiraan marko dabcan meeshan hada desktop oo kale hadan falaartan yarta ka dhigsiyo waxa la soo baxaa wixii desktop ku jiray oo dhan folderrada la soo baxaa file lagu soo bandhigo laakiin folder lagu soo bandhigaa haddaan document soo ku dhufto waa la ismi wali la sii socday mid kasta sii furlay waa ma garatay oo sii furaysa waxaan xagga yaala marka PC ay yaalaan PC xiro ay xirmayaan ayaga dhan ma garatay way ku soo xirmayaan kaliya waxa furmaya markaas desktop-ka ah ee asagu markaa furaya furmaya hagaag marka kuwa iska dhan xirana wixii ma la arkaayo ayagana fiiri kuwiiska markaan furo saan ay soo baxaan xirana wixii ma la arkaayo marka qoftan waa kama muli karta waa meel expanding collapse ayadana waa soo macnaha soo gaabi haddaan tagan expandina waa ballaari macnaha okay qaybtan hoose marka hadii la kuurayahay inaan macnaha bin current folderka aan joogaba ku xiro macnaha markaas folderka aad joogtaba folder document joogto kale ku xiro macnaha hadii la kuurayahay bin ku sii xiro waa lagu sii xiray oo lagu sii daraya macnaha dabcan balan fiirinaha mar lagu daray in kale halkan ay macnaha kaga darsamayaan ayaguna oo kale si current ayuu kaga noqonaya macnaha waxa ku xiran markaas oo sii shaqeynaya ayuu noqonaya ku sii jira meesha ayuu noqonaya meesha muhiimka u socda waa halkan maanta oo ah options markaan ku dhufto meeshan ayaa ii soo baxaya general waxa la leeyahay meeshan folder options waa sidan folderka uu isticmaala folderradii waxaan rabaa halkayga inaan ku furo markaan ku dhahayo weeyaan meeshan waxa igu taala leeyahay open each folder kasta waxa ku furtaa in same window hal daaqad kooda furo oo waxba daaqad kala soo furanin waa mid hadda ii saaran halkaan hoosana waxa leeyahay open each folder kasta fur in its own window daaqad gooni mid kasta u sameey balaxbadan ku kirsiyo kadibna aan iraahdo okay aan iraahdo kadibna balan furo pictures markaan furo folder cusub ayaa pictures noqonaysa ayaa la rabaa inay noqoto hal mar aan dib u noqdo documents aan ka baxo meesha hal mar halkan ayaan joogaa kadibna documents ayaan furay withdrawn okay dib u noqo options open each folder in its own hadii la kuuriyo window ku furo okay tan hore ay igu saareed okay apply okay hagaag kan markaan soo furo waxaan rabaa inuu ma ii soo baxo tusaale ahaan halkan imo kan iska delete hagaag kan hal mar xir dib ugu soo noqo hagaag soo fur marka documents fur what's wrong I don't need this and quick access options okay expand collapse expand okay iska balaar waxba ku qoran halkaan imo options hagaag insane hadii la ku roon yahay window okay is wrong aan rabaa inuu hal mar ii soo wada furo hal meel iga soo furo oo mid kasta qaanad gooni iigu furo dabcan some problems ayaa jira waxayaan ay qadamiyaan hagaag downloads document there is something wrong hadda fahmay waxaa sameynaysaa hadii la ku roon yahay hal mar aan ku noqono bal halkan right click si kadibna waxaad options tag kadibna halkan hadii ku saaro kan saaro okay deh
halkan waxa laga wadaa marka open each folder kasta waxa ku furtaa window qaas oo ku fur weeyaan yani folderkan gudaha maaha kan kuwan ku jira folderkan ku dhex jira documents oo kale ayaan rabaa inaan folder fax ama deel ku reeyo ama scan document aan dhagsiyo kadib markaan furo folder cusub ayaa la igu furayo halkan arag folder cusub weeyaan waa laba folder kana waa kii aan joogay kana waa kii cusub hadda la igu furay oo window cusub ayaa la igu furayaa dabcan haddii sidaan yihiin camal oo kale mid kasta markaan aan click siiyo tusaalahan folderkaas markaan click siiyo daaqadiisa cusub ayaa la igu furayaa oo aad arkaysaa saddex daaqadood ayaa la siiyay saddexdii folder aan furay weeyaan marka optionkaas aniga iskale haddana right click ayaan siinayaa haddii aan u baahnayna meeshiisa kore ayaan saaranayaa halkan hoose markaan imaado click itemada halkan marka sida soo socdaan ay u kala dhacayaan waxa uu leeyahay single click to open hal click kaliya hal click kaliya samayso si aad u furatid midka dooratid hore ka furanaysa oo dhaw click dhaysa laakiin hadda samaysa click bas siinaysa kaliya haddaan saarto iraado one click saar ay raado halii hadana underline icon title code hoosta ka xariiq ee leeyahay ama underline icon title only one I point markan dhagsiyo hoosta ka xariiq haddaan kan doorto hadda kadibna aan okay iraahdo markaan folderka imaado fiiri hoosta laga xariiqay xogtiisina hore la iga sii fiiri waa dultiga kaliya fiiri hore la iga sii fiiri midka anoo click ma sii hayo ma taabanayo ma waa dultiga kaliya markaan dultago fiiri hore la iga taabanaa dhab hore laga soo qabanaa markaan dultago haddaan rabo inaan furto fiiri markaan dultago fiiri mid kasta hore laga soo qabanaa fiiri geeskan qaybtan fiiri markaan dultago maxaa dhacaya waa dulga maxaa dhacaya haddaan rabo inaan furno click bas aan siinaa kaliya aan siinaa qura fiiri hore ka soo furmaya folderkii ma arkaysaa kan haddaan rabo inaan tago click bas aan siinaa kaliya hore ka soo furma asaga waa kan fiiri new window lagu soo furay ma fahantay waa sida macnaha adaga doorta halka kale adiga raadsaday adiga doontay one click ayaa dooratay in hoos laga xariiq ayaa dooratay halkan hoos iyaduna waa privacy go show recently used files faylkii marka u dambeeyay isticmaalaysa ayaa ku access laga tusaya iyo frequently used folderkii horena ama laga tusay labadaba tika ku saarata meeshaas ka qaadin qaybtan view adiga ayaan ku deynay adoo ku baashaal waxa ka buux options aad u fara badan xabad u tagin hadaan dhiraahno waqti badan ay cunaysaa file folder ayaa meeshan lagu siina waa advanced setting waa sidii you can apply this view waa la bali kartaa baa lagu yiri deel ku roonyahay waa isticmaali kartaa viewgan iyo aragtidan qaybtan waa isticmaali kartaa all folders aad isticmaali kartaa this type yani waxa dhigi kartaa always show icons dhammaan iconada laakiin nafa thumbnail ha u yeelin thumbnail waxa laga wadaa calaamad iska dhex muuqata macnaha ha u yeelin ayaa laga wadaa deel ku always show icon menus ka itus is tahin display file kan thumbnail ka itus don't show hidden files oo iconada qarsan ay tusin dhamaan waxaan adiga ay markaad akhristo mid faahanta kadibna kaliya saysanayso adiga ay meesha ku noqonaya taban hadaan meesha isaga noqonaya kan kaliya iska saaranaya kana double click iska saaranaya okay waa saara kartaa waana isticmaali kartaa qayb searching hadaan imaado meesha waxba la iga digaya oo waxa lagu leeyahay don't use isticmaalin qayb searching waa qaybtan halkan qaybta ka muuqato weeyaan qaybta meeshan ka muuqata laga wada searching marka waxa la don't use isticmaalin the index يعني qaybtan tiraga saaran indexka isticmaal indexku ay haba program kala xiriir wan marka doonaysa in saad gareysa file ama folder hadii aad saad sameeyana maxaa dhacay seriska waxay qaadan doonaan waqti badan ay qaadan doonaan inta badan kan ku saaraday include system direction directories ugu saaro oo systemka soo ku control shaygan hore kaga soo saaro hadad comparative file raasidan adiga ayadana deel ku rin xorba u tahay hadii tan asaarto always search name-ka iyo context iyada tirada ayadana waxa loo waqti badan ay qaadan doontaa okay intaan kaga tagaya waxaan leeyahay marka deel ku reeyay hawsheedas igu ekay waxaan isla fahnay ku access ka maantay waxaan isla baranay file-ka waxaan ka fahnay deel ku reeyay ku access-ka deel ku reeyay halkan sida file iyo qaabka loo kala dileeyo qaabka loo kala sii hayo hal mar insha Allah dib ayaan hal ayaan ugu soo noqon doonaa bidin karim koorsadeen waa mid gabagaba deel ku reeyay koors qaybtiisa koowaad oo ahayd computer-ka sida loo macaamil leh horta gudihiisa waxyaabo yar ayaa noo haray oo sida computer wax loogu shubtay sida wax loogu shubo 10 ku xigbiinal kareem casharada ka dambeeya ee soo gali doonaan hadii la ku reeyay qaybaha view-ga dambaan ka hal doonay waxyaabo yar oo muhiim ah oo kale ay soo raaci doona waxaan ku leeyahay marka binal kareem ka hadii la ku reeyay ka qayb qaado dhiirigelinteena
waxaana si aad iyo aad ugu mahad celinaya asxaabta qaaliga ee dhiirigelisay ee hadda meesha aan marin hadii la kurinay la soo gaartay lana soo gaarsida casharkan aad iyo aad ugu mahad celinaya aad iyo aad ugu mahad celinaya boqolkiiba boqol haddii aad ka mid tahay asxaabtina la joogtay far soo taago oo soo dir hadii la kurinay si aan hadii la kurinay qalbiga kaga mahad celiyo thanks casharkan intaas ayaan kusoo koobaya casharka ku xiga la soco waa muhiim waa very important waxaana qaybta Facebook ku aragtan sidaan filayo inaan mar dhow bilaabi rabno Microsoft Word ee qaybtii sida aad wax ugu qoran lahayd oo qoraala aad uga samaysan lahayd inaan bilaabi rabno ayaan hore insha Allah dee la ku run yahay oo soo shaacin xayisiintii dee la ku hore soo bandhignay haddii aad doonaysid group Telegram ku biirto kooxtiin group Telegram ku biirtaana waa soo codsan kartaan haddii aad meesha kala soconaysan ayaduna waa booskeeda halkan way dee la ku run qaybta aan geey doona Binary Cream iyo sidii wax aan u qorinay Binary Cream thank you casharka iyo dee la ku run waqtiga lagu bixiyay aad u fara badan yahay waxaan ka codsanaynaa marka inaad nagu dhiirigeliso in hore u socono thanks